in nolol qoys la yagaleelo ma aha wax sahlan marka la eego caqabadaha idin soo wajihi kara iyo sida ay muhiimka u tahay in aad xiriirkiina ilaalisaan. dad badan ayaa ku guulaystay imtixaankan oo noloshooda ku dhamaystay farxad iyo ranrayn, laakiin nasiib darro waxaa jira kuwo kale oo ay tallaabadu la rogmato ugu dambeyntiina kala taga. haddii arrimahan aad ku dhaqantaan adiga iyo qofka jacaylkaaga ah, waxaa hubaal ah in xiriirkiinu uu awood yeelanayo, farxadiinuna ay sii kordhaysto marba marka ka dambaysa. xitaa haddii aad ugu yaraan 3 ka mid ah ku aragtid noloshiina waxaad ku socotaan wadada saxda ah. waan ku jeclahay qofka aad nolosha isla wadaagtaan ama xiriirka leedihiin ku dheh waan ku jeclahay maalin kasta ugu yaraan hal mar. aad bay muhiim u tahay in aad si joogto ah u muujiso sida aad ugu faraxsan tahay jacaylkiina ugana mahad sheeganaysid. ereygaas wuxuu mar walba cusboonaysiiyaa iftiinka qalbigiina ee uu jacaylka idinka dhexeeya abuuray. yaysan kula noqonin in marba haddii aad isla joogtaan ay iska caddahay in aad jeceshahay, sababtoo ah aad bay u habboon tahay in jacaylka uu mar walba afkaagana ka soo baxo. 2 ka hortaga masayrka. kalsoonida waa tiirka ugu weyn ee uu ku dhisan yahay xiriirka lamaanaha. haddii ay meesha ka baxdana xiriirkaas wuxuu qarka u saaran yahay in uu burburo. marka ay kalsoonidaas daciifto waxaa meesha soo galay masayr, kaas oo ah in qofka aad isjeceshihiin uu kaaga sheekiyo in aad qof kale dhankiisa u janjeerto. marka ugu horeysa ee aad dareentid in kalsoonidaada ay yaraanayso, la wadaag xaaskaaga ama ninkaaga si aad wadajir ugu xalisaan arrimaha jira inta aysan talo faraha ka bixin. 3 shaqada guriga. ma habboona in hawsha guriga lagu sii daaya hal qof oo keliya. isku day in adiga iyo lamaanahaaga aad kala qaybsataan shaqada dabiiciga ah ee guriga, nooc walba oo ay ahaataba. xitaa haddii aysan suuragal ahayn in aad si siman u kala qaybsataan, samee liis oo qof walba ha lagu ogaado howlo cayiman. in ruux keliya lagu eegto hawsha guriga waxay sababi kartaa culays horseeda in hal qof uu dhibsado nolosha qoyskaas ka dhaxaysa. taasna waxaa habboon in laga sii hortago. 4 hadiyado yaryar. inta badan lama soo xasuusta, balse aad bay u wacan tahay in aad si joogto ah uga fakartid waxyaabaha iska sahlan ee aad ku heli kartid dhoola cadeynta qaaska ah ee lamaanahaaga. way kasii qurux badan tahay marka aad taqaanid waxyaabaha uu qofka aad nolosha wadaagtaan jecel yahay, balse waa in aad ku qanacdid wax walba oo hadiyad ahaan lagaaga dhigo, xitaa haddii ay aad u yar yihiin. waayo muhiimada ugu weyn waa qalbiga waxaas kula soo jeclaaday. 5 cuntada. isku mar wax cuna, isku meelna ku cunteeya ilaa intii aad awoodaan. suuragal ma aha in aad xilliyada oo dhan isla cuntaysaan, laakiin ku dadaal in ugu yaraan hal waqti aad isla cuntaysaan. xilligaas ha ku mashquulin teleefoonkaaga oo ha iska aamusnaanin. taas beddelkeedana ka sheekaysta maalintiina iyo weliba qorshihiina ku aadan maalmaha fasaxa ah. haddii midkiin ama labadiinuba aad shaqaysaan, ku raaxaysta iswehesashadiina xilliga cuntada haddiiba aad awoodaan. 6 madax banaani. aqoonso in qofka nolosha kula wadaaga uu yahay ruux kale oo aad ahayn adiga oo lagaa dhigay. taasi micnaheeda waa inaad ku xukumin go'aanada nolosha una taxgelisid inuu yahay qof fikrado gaar ah leh. waxaa kale oo habboon in aadan lamaanahaaga dabagal ku samaynin si xiriirkiina uusan dhaawac u soo gaarin. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la iska ilaaliyo waxaa ka mid ah in aadan baaritaan ku samaynin teleefoonka qof kale. 7 oo ah qodobka ugu muhiimsan ahna qodobka ugu dambeeyo. xasuusno mar walba muhiimada ay leedahay in aad isla aadaan fasax dalxiis ah. safarku ha dhowaado ama ha dheeraadee, in aad waqti iskula soo qaadataan meel ka duwan meeshii aad joogteen waxay horseedaysaa in aad samaysataan xasuus cusub, waxaana ku sii adkaanaya tiirasha xiriirkiinu
ku dhisan yahay dalxiis kasta wuxuu sii xoojinayaa jacaylkiina. dadka mar waliba u fahmaya erayada ama qoraalada aan soo qorayna ujeeda kale falan ma ahan ee waa tixgelin ama waa dhiirigelin aan idiin samaynayno.